waxbartaan 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 barwaaqo gaarne waxbartaan 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 waxbartaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kusoo dhowaada janaalka Ustaad Saciid Training. ugu horreyntii waxaan rabaa inaan idinka raaligeliyo oo aan ka cudurdaaranayaa fideogii hordhaca ahaa inaan idinku soo gudbiyey Photoshopka aan casharadeenna u adeegsan doono inuu yahay 2019 laakiin marka aan ogaaday bulshada aan wax u faa'iideynayo inay ku adag tahay inay helaan Photoshop 2019 maadaama uu yahay lacag oo uusan ahayn free waxaan go'aansaday casharkeenna inaan u adeegsano Photoshop 2017 intaas waxay ahayd warbixin kooban oo hordhac caawa waxaynu guda gelaynaa oo bilaabanaynaa casharkii xalqadeedii koowaad ee casharkeenna Photoshop CC ku saabsanayd horey ayaynu uga soo hadalnay waxa uu yahay Photoshop laakiin haddeer Photoshop waxaynu u kala qaadi doonaa laba qaybood oo ah designing photos designingku waxaan tusaale u soo qaadanaynaa loogadan aniga ayaa design gareeyay sidaa u design gareeyay marka designerka waxa weeye inaad adigu wax ikhtiraacdid oo aad wax sawirtid qaybta labaad waxay noqonaysaa editing oo ah shay aad wax ka bedelaysid waxaynu tusaale u soo qaadan doonaa sawirkan aad arkaysid markii hore halkaas ayuu yaalay waa xaflad aan joogay oo ka qayb galay mikrofoonka gacanta ku haystay laakiin markii aan edit gareeyay oo wax ka bedelay haddeer TV-ga ayaan dhex geeyay waad u jeedaan marka qaybta edit gareynta waa in aad shay sidii hore uu ahaa originalka aad ka bedeshid aad markaas qaabka adigu aad doonaysa aad ka dhigtid marka designingku waa in aad adigu wax magaranaysaa hal abuuratid iyo in aad shay wax ka bedeshid labada qaybood buu u qaybsamayaa marka Photoshopka waxa weeye caaway wax sawiritaanka ma gaarno maadaama uu cashar koowaad yahay waxaynu ku ogaanaynaa Photoshop horta sida uu u eegyahay asag iyo waxa uu ka kooban yahay marka loogadan hadda aad u jeedaan waa Photoshopka loogadiisa waaynu soo kicinaynaa Photoshop sidii uu eegyahay waynu arki doonaa la socosho wanaagsan hadda wuu soo kacayaa sida ayuu u eegyahay Adobe Creative Cloud Photoshop CC 2017 weeye versionka softwareka loo isticmaalana waa 2017 markaa rabtid marka ugu horeysa applicationku sidan ayuu soo kacayaa markaa gudihiisa galaysid haddaa rabtid inaad faylka wax ka soo qaadid open baa dhahaysaa uma baahnin marka open inagu page cusub ayaynu furanaynaa new baynu oranayna qaybtan ugu horeysa oo soo baxaysa templates baa la yidhahdaa waa halka size-ka aad wax ku cabiranaysid ama waxa aad sawiraysid size-kiisa aad ka dooran lahayd tusaale tan aan dul joogno kale A4 weeye size-keedii qaybtan kalena normal letters warqadda caadiga weeye ay size u baahan tahay ayaa halka ka dooranaysaa halkan ay imanaysaa meesha size-ka ku qoraysid wuxuu leeyahay size-ku pixels inches centimeter millimeter iyo sida aad u jeedaan marka hadda size-kii aynu u baahnayn baa inoogu jira ballacu waa 15 dhererku waa 10 resolutionku waa 300 halkan kalarka page-ka aad qaadanaysid ama warqadda aad soo furanaysid hadba kalarka aad rabtid inay ku noqoto baa halkaa ka dooranaysaa marka inagu cadaan baynu u baahannahay kalarka cadaan baynu u baahannahay cadaankeenu qaadanaynaa kadib create baa oranaynaa saan gudaha u galno marka ugu horeysa marka aad gudaha usoo gashid Photoshop sidaan ayuu u eegyahay qaybta ugu sarreysa waxaa la yidhaahdaa menu bar
menu bar baa la yidhahdaa ilaa halkaa laga bilaabo ilaa halkaa lagu geeyo menu bar baa la yidhahdaa qaybtan waxaa la yidhahdaa toolbar baa lagu magacaabaa qaybtan dhexe waxaa la yidhahdaa pages oo waa halkii aynu ku shaqayn lahayn oo wax ku sawiri lahayn qaybta dhinacaan soo xigta waa layers baa la yidhahdaa marka waa inaad saa u kala barataa photoshop waxa uu ka kooban yahay menu barka toolbar pages iyo layers waa muhiim qaybtana soo furano waa kan halkan waad ka arki kartaa si fiican waxa menu bar iyo toolbar ay yihiin marka menu bar haddaynu saa usoo furno waa kan file edit image layer tape select marka waa kan ilaa lagu geeyo helbis intaas ayaa waxaa la yidhahdaa menu bar marka qaybta ku xigta waa kan toolbarka marka aad ayuu fara badan yahay waa wixii aynu wax ku sawiri lahayn oo itemyada aynu ku shaqayn lahayn aad ayuu fara badan yahay toolbar inta ugu muhiimsan marka aad rabo inaad qabataan waa intaas menu bar toolbar iyo layers iyo page oo halkii halkan sidoo kaleeto waa in ay essential ku ahaato halkaas essential waa inay ku ahaato mararka qaar waxaa dhici karta inaydaan ku wareerin in uu magaranaysa ama si khaldan gacantu kaagaga dhacdo layerskan oo kale inay gacantu kaaga dhacdo oo magaranaysa aad iska dhigidid baa dhici karta marka qaab loo soo celiyo baa jira halkan waa tegi kadhaa layer compass waxaanu oranaynaa f7 baynu oranaynaa f7 si aan u soo ceshino waa kan marka waa caqabadaha ka hor imaan kara bay kamid tahay f7 baa oranayna halkeedii baan dhigaynaa tooliskan oo kale waa waayi ka dhaa sidoo kale mararka qaar asagoo qaabkaa qaab ahayn oo saan oo kale u samaysan buu ka hor imanaya marka tooliska marka asagana window baa tegaysaa halkaasaa kasoo select garaynaysaa waa kan toolis marka dhexdii kuu soo laabanaya marka intaana magaranaysaa waa hadhow si aadan ugu wareerin waxa kaloo aan rabaa inaan nila socodsiiyo waynu guda geli doonaa oo magaranaysaa tooliska iyo habka lagu shaqaynayo iyo layers iyo u tegi doonaa intayna marka halkaa gaarin waxaan rabaa inaan ni xasuusiyo oo aan nila wadaago warqadan iyo warqad kaloo aan dib inaga tusaya ayadana ina soo wadaa warqadan tooliska waxa uu ka kooban yahay iyo shay walba oo toolka ku jira magac uu leeyahay magacna wax loo soo gaabiya ayaa jira hadda move tool v baa loo soo gaabiya calaamadiisana wataa rectangular oo dhinaca ku taala m baa loo soo gaabiya magaranaysa marka lasso tool waata calaamadeeda marka rectangular de waa garanaysa waa calaamada afrigeeska marka maxaa shay walba oo halkaa ku jira markii aynu dul tagno baynu magaranaysaa sharaxi doonaa hadduu allah waddaga inoo ogolaado markaynu sawiraanta dhex galno inaan wax sawirno markaynu dhex galno waa kan hadda rectangular waa kan halkan oo kale r buu taagan yahay zoom oo kale z bay taagan tahay marka waa sidaas oo kale marka xaraf walba wuxuu u taagan yahay warqadan waa inii soo diri doonaa waa muhiim waa inaa warqadaas taqaanid oo xifdisan tahay warqad kalaa jidha ayadana halkan niga tusi doono warqada kalena waa tan halkan ayaa ku jidhaa warqadan kale waxay kaa caawinaysaa waa tan warqadan kale waxay kaa caawinaysaa short key wey waxa meesha ku jira control plus n oo kale markaad hadda qabatid new page baa si fudud kuugu soo furmaya waa wado fudud oo filekaar kusoo furan kartid control plus o markaa dhahdid documentskaaga iyo filekaaga computerka ku dhex gelaya ama sawir waxa rabtaa soo qaadanaysa control plus save markaa tirahdid waxa weeye shaygii marka aad photoshop ka dhex joogtid horey buu kaaga save garaysmaya marka intaa shay raadin lahayd oo save iyo soo oran lahayd
waa shortkii magaranaysaa qaab fudud oo waxaaga u save garaysan karid ama ku raadsan karid ama page cusub kusoo dooran karid. warqaddaa waa muhiim, warqaddaas waa muhiim. marka labada warqadoodba descriptionka ayaa lagu reebi doonaa hadduu allah ogolaado. marka tooliska waxaa ka mid ah colors oo waxyaabaha aadka muhiimka u ah. colorku meelo badan ayuu ku jiraa. tooliska marka wax yar haddaynu asna laba qaybood ka kooban yahay. qayb waxaa la yidhahdaa customize oo halkan ay kusii dhex jiraa. right click baa oranaysaa customize baa la yidhahdaa. waa tooliskii asagoo dhammaystiran wixii aa wax ku sawiran lahayd ayuu halkan kugu jiraa. marka wixii aa wax ku sawiran lahayd oo dhan baa halkan kugu jiraa. marka laba qaybood buu marka tooliska laftigiisa u qaybsanaya. waa qaybtaasoo kuu diyaarsan oo wixii aa wax ku sawiran lahayd oo ku shaqayn lahayd itemiskii lagu diyaariyey, iyo qayb kaloo daahfuran oo adiga aa xor u tahay qaabka wax u sawiranaysa, qaybka sawirka nooca aragtid inaad diyaarsatid aad adigu xor u tahay. labadaa qaybood buu magaranaysaa tooliskina u qaybisan yahay. coloriska marka isna meelo badan buu ku jiraa. hadda customize oo kale markaad joogtid colorkiisa magaranaysaa gooni weeye. kalaradu marka meelo badan bay ku jiraan, iyadana hadhow waynu arki doonaa, casharada dambe aynu ku arki doonaa. marka hadduu allah awoodda inoo ogolaado casharka ku xiga ayaynu ku sharaxi doonaa sawirada iyo magaranaysaa aynu ku bilaaban doonaa hadduu allah awoodda inoo ogolaado designkii iyo wixii aynu doonayna inaan sawirno. laakiin hadda muhiimaddu waxay ahayd inaynu baranno photoshop muxuu yahay, muxuu ka kooban yahay. marka assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakatu.